ambassador ka ahay hoosun baa hayday laakiin imika officially marka retire noqdo inaan nimaado wadankii aan aragno the Save the Children maxay haysaa maxay qabataa maxaan qaban karnaa waliba dhalinyarada iskuulada marka insha Allah maalmo ma rajaynaa waa subax saaka xaga intay gabalada miistaagay adana meel kale aan sii talaabanaa marka waxyaalo badan ma aan hadii lahayda wala dareenkayga aad u fiican yahay qof kasta oo meesha ku soo karay ku barbaaray ma ilaawo laakiin waxaan uga leedahay waajib wadankeena inaan wax qabano marka waxaan kamid ah saan ku sheegay ambassador baan ahay Save the Children in badan bay wadanka Somaliland oo caawisay haday noqoto dhalinyarada haday noqoto haday youth-ki noqoto haday noqoto malnutrition oo dhaqtarada marka aan in badan baan kula jiray marka waxaan rabnaa maanta inaan ogaano shaqada soo jirta sida u dhacday maxaa la qabtay waxaan ku beeri karnaa wadanka maxaa iska bedelay oo waliba nagula jiraan meerka gabalina joogo oo dad badan ka soo qaadan doonaan insha Allah waan jecelahay wadankaygana wax u qabto aad baan jecelahay dadkayga wax u qabto aad baan jecelahay in badan waan soo qabanayo maanta maaha laakiin maanta waxa la tusay muuqaalada iyo wixii aan qabanay ilaa the last 5 years waxaan ahaa Save the Children ilaa iyo marka 5 sano ka badan way ku jirtaa